muddo ka badan hal sano ayaa kasoo wareegatay markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ka dhex dhigay dhismaha degad ay yeelan doonto halkaasi balse weli uusan hirgelin qorshaha dhismaha degadaasi isla markaana dowladda aysan xil gooni ah iska saarin hirgelinta degada taasoo rajabeel ku abuurtay bulshada ku nool magaalada Hobyo ee deegaanada hoos yimaada maamulka Galmudug. Wasaaradda Dekedaha Galmudug ayaa bilowday qorshe lagu dhisiyo marsada degmada Hobyo ee gobolka Mudug halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la doonayo in lagu dhiso degadaasi. Xubno ka tirsan wasaaradda dekedaha ayaa gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug kuwaas oo dhagax dhigay xarumihii laga hagi lahaa degada kuwaas oo si isxilqaan ay ku dhisiyaan shacabka Galmudug iyo maamulkooda. xubno ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo halkaasi gaaray ayaa sheegay in maamul ahaan ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo dhisi lahaa marsada degmada Hobyo. bilaab idinka soo dhagax dhigna maantay oo aan soo indheeyna meeshii uu yaalay towerka oo awal badda laga maamuli jiray xilligii Talyaaniga. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka reer Galmudug iyo jaaliyadaha iyo kuwa dalka ku nool intaba inay ka qayb qaataan barnaamijkaas dib u dhiska ah oo xaruntii hore ee Talyaaniga uu dhisay dib loogu dhisayo oo hadda la rabo in la dayactirkaas kadib haddii Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay naftana gaarsiiyo weeye aniga iyo wasiirka iyo wasaaradda shaqaalaheeda kale iyo intii kale nala shaqeyso oo dawladda Galmudug ugu horeyso inaan dekadii markaa ka bacdi hawsheeda aan galno u fiican oo ah marka hore towerka iyo muxuu ahaa xafiisyada iyo inuu dhiso waa arrin aad aan ugu soo dhaweynayno waana ku faraxsanahay wasiirku inuu ku soo dhiirado wasiirkii koobaad oo intii dawladda la dhisay Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf wasiiradiisii wasiirkii ugu horeeyay oo halkaan ku soo dhiirada uu yimaado oo wuxuu qaban lahaa si toos ah ugu shaqeeyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. midda labaad maanta waxaa sharaf noo ah inaan joogno meeshii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noo dhagax dhigay hal sano ka hor ilaa haddana ma aragno wax hadda socda laakiin waxa rajo ayaan ku noolahay tikada haday noo dhisantana dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira qaasada Galmudugna waxaan rajaynaynaa wax badan inay iska bedeli doonaan. ugu dambeyn waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka dekedaha Galmudug Faysal Abshir Nuur isagoo sheegay inay dhagax dhigeen xarumo lagu talagalay inay bilow u noqdaan dhismaha degada Hobyo wuxuuna sheegay in dhismaha degada Hobyo ay door wanaagsan ay ka qaadan doonaan shacabka reer Galmudug sida uu hadalka u dhigay. anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda Galmudug waxaan rabaa inaan bulshooyinka reer Galmudug la socodsiiyo xaaladda maanta ay marayso dekada Hobyo oo dadku intooda badan ay ku taameeyeen in mar ay halkaas ay dekad ka timaado sida aad la socotaan dekada Hobyo in muddo ah ay waxay ku sugnayd marxalad runtii jahwareersan oo aan istiraatiijiyad cad lahayn. waxaan ula jeedaa waxaa yimid dawlado iyo shirkado iyo dad ganacsato private ah oo qolo walba ay sheegaysay inay rabto halkan inay dekad ka dhisto isla markaana istiraatiijiyad ka dambayso oo sax ah oo qoraal ah ilaa waxa la yiri war dawlo warqad ku yaala la yiri wax qoraal ah oo habaysan oo tixraac leh oo la daba gali karo oo sax ah ma aysan jirinin taas waxay sababtay in meesha maanta dekada Hobyo ay marayso iyo marxaladda ay ku sugan tahay inay joogto. dekada Hobyo waxay la mid tahay dekadaha Saylac iyo Baraabe iyo kuwa kale oo qadiimi ah waa dekadaha ugu qadiimsan gobolka Soomaaliya. maanta halkan inay joogto waxaa mas'uul ka ah dadkeedii oo aan ku dhiiranin inay iyagu inta gamcaha isqabsadaan u diyaar garoobin inay meeshan wax ka qabtaan. waxa hadda aan jeclaan lahaa bulshada inaan ku baraarujiyo inay dekadaas Hobyo aysan cidna la sugin. Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa in qof walba oo jaaliyadda Galmudug ah
amba gobolkan ku nool danaynaya halka inay dekadii ka timaado inay u diyaar garoobaan inay iyagu wax bilowdaan taas waxay noo suurtagelinaysaa inaan meel bari ciddii danaynaysa inay wax nala qabato hadday ahaan lahayd shirkadaha gaarka loo leeyahay ganacsatada dawladda federaalka ah dawladaha kale ee danaynaya in meeshan development laga sameeyo markaas meel wax laga qaban karo inay noogu yimaadaan laakiin inagoo meel sagxada fadhino haddaan cid walba gacanta u taagno dhan wakaalay wax nala qabta waana loo imaanayaa ciidda la qaadaya masafraana la ka qaadaya waana la ka tegayaa maanta wasaaradda dekedaha waxay soo bandhigaysaa mashruuc la yiraahdo isxilqaan mashruucaas wuxuu noqonayaa mashruuc aan doonayno inaan ku dhisno marka koobaad ground floorkii iyo authority-gii oo ah meeshii laga maamuli lahaa dekedda wuxuu ka koobnaan doonaa towerkii iyo xafiisyadii iyo mataqaanaa ii sheegeen kastamadii waxaa ku hoos jiri doona tababaro oo hadda aan haysano ilaa 30 dhalinyaro ah oo insha Allah nala tababari doono lana bari doono culumta badda iyo sida loo maamulo dekedaha waxa inta xigi doona oo waa chain amba silsilad isku xiran waxa xigi doona dhismihii dekedii macmalka ahayd oo ayadana qorsheedu uu hadda noo socday miiskana saaran yahay waxaan rabaa qorshahaas in qof walba uu isha ku hayo dhaqdhaqaaqiisa bilowgiisa iyo dhamaadkiisa waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo barnaamijkan inuu bilaaban doono qorshahaas wuxuu noqon doonaa qorshe laga fakaray mug leh fishin leh aragti leh qorshaha aanu ka fakarnay meesha aan gaarsiino bari dad baa ka wadi doona laakiin muhiimaddu waxay tahay bilow leh dhamaystir muuqda inaan sameeyno oo qof alla qofkii bari yimaada uu wax ka bedeli karo waxna ku dari karo sidoo kale waxaa jira ganacsato badan oo gobolka u dhashay danaynaya development-ga dekedda waxaan uga baaqayaa inay yimaadaan hadda waxaa yimid rag mataqaanaa ganacsato ah oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho oo danaynaya kaydka shidaalka iyo haamanka inay aasaan waxaan uga baaqayaa ganacsatadaas sida gaarka ay ugu yimid magaalada gaalkacyo inay ku soo degdegaan barnaamijkii ay ugu yimaadeen sidoo kale waxaan uga baaqayaa ganacsatada kale fursadaha kala bannaan sida storage-yada iyo mataqaanaa freezer-ada iyo mataqaanaa waxyaabaha kale ee waaweyn ee bannaan inay gaabka soo buuxiyaan